soo dhawaada daawadayaal halkaani waa Guulwada Online maanta waa ay ka duwan tahay warbixinadii kala idin soo gudbin doonay warbixino badan aad u xiis badan ayaa idin soo gudbin doona waxaana ka mid noqon doona nin baadi goob ayaa malaayiin dollar oo 9 sano ka hor ugu luntay qashin qob hadaba dhageystayaal ninkaasi ma helay ayaad isleedahay warbixintan ayaana ku dul istaagi doona sidoo kale waxaa daawan doontaa wax ka ogow ayaa lagu yiri taariikhda aan la xusin ee bunka ama qaxbaha hadaba dhageystayaal adiga maxaad ka taqaanaa qaxbaha ama bunka waan idin soo gudbin doonaa warbixinadaasi ayaana dul istaagi doonaa balse ugu horreyn daawad intaan gudagelan daawashada muuqaalka share dheh halka YouTube kana subscribe inoo saar aad baad u mahadsantihiin aan ku bilowno ku dhawaad 10 sano ka hor James Howlett ayaa lumiyay mid qalabka uu ku keydiyo xogta hard drive oo ay ku jiraan macluumaad Bitcoin xilli uu nadiifinayay gurigiisa macluumaadka Bitcoin ee ku jira qalabkaasi ayaa qiimihiisu haatan lagu sheegaya 184 milyan oo dollar waxaana Howlett uu damacsan yahay in uu faago qashinka qub uu tuhunsan yahay in qalabkaasi lagu tuuray Howlett oo injineer tiknoolajiyad ah ayaa u balan qaaday maamulka magaalada Newport ee Wales maamul qashin qubka inuu siin doono 10% lacagta ku jirta qalabkaasi waa hadii loo ogolaado inuu sameeyo baadigoobkiisa hase yeeshee maamulka magaalada ayaa ku dooday in faagida qashinkaasi ay horseedi karto dhibaato ku timaada deegaanka qorshaha uu ku doonayo in qalabkaasi lagu baaro qashinka ayaa noqonaya hawl adagba maadaama ay tahay in la fogaado in laga fogaado jawaano qashin ah oo halka yaala muddo 10 sano ah Howlett ayaa rumaysan inuu sanado badan kadib uu hadda haysto dhaqaale ku filan iyo hab casri ah oo ku baadigoobi karo hard drive-ka kaas oo ku jiro xogta lacagta badan James Howlett ayaa doonaya in haddii uu helo maalkaasi kalumay uu mashaariic horumarineed ay ka sameynayo magaaladiisa Newport wuxuu sidoo kale doonayaa inuu dhammaan dadka ku dhaqan magaaladaasi uu midkiiba siiyo Bitcoin uu dhigata cotton band si uu u dhiirigeliyo sida ay tahayna maamulka magaalada Newport ayaa weli ku adkeysanaya in Howlett aan loo ogolaan in uu faago qashin qubka maadaama taasi ay horseedi karto dhibaato deegaanka ah haddaan eegna warbixinta kale aan idin heynana in ka badan 2 bilyan oo koob oo bun ah ama qaxwo ayaa maalin kasta laga cabaa dunida Britain oo qura ayaa dadkeedu waxay maalintii cabaan 90 milyan oo koob oo bun ah 450 sano ah bunka ayaa ahaa wax aan laga aqoon dalka galbeedka dadka ku nool Ethiopia ayaa ogaaday marka la qalajiyo miraha bunka laga sameyn karo cabitaan madax dajiya kadib wax uu si weyn ugu faafaya dalkaasi reer galbeedka xilliga booqan jiray Ethiopia ayaa ogaaday muhiimadda uu leeyahay cabitaanka bunka waxayna ogeeyeen dalkooda waxay ay fahmeen in cabitaanka bunka uu wanaagsan yahay maskaxda gaar ahaan marka ay dhinacyada ka xaajoonayaan arrimaha ganacsiga markii bunku uu gaaray dalalka galbeedka waxay shacabkii halka ku noolaa oo arkeen siyaabo kala duwan qaar ayaa ku tilmaamay cabitaankii buluuto madaxa dadka dhintay guud ahaan Britain maqaayadii ugu horeysay ee laga bilaabo bunka ayaa sanadkii 1651 laga furay Oxford waxaana xigay mid kale oo laga furay caasimadda London qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan shaqaalaha bangiyada ganacsatada mutacalimiinta iyo dadka caadiga ah ayaa bilaabay inay cabaan bunka boqorkii Ingiriiska ee Charles ayaa markii isku dayay inuu mamnuuco cabitaanka bunka isagoo sheegay inuu horseedayo khiyaanada qaran xiligaasi waxa bunka cabi jiray ragga oo qura waxaana loo yaqaanay cabitaanka ragga dhanka kale waxa soo baxay khuraafaad badan oo ku saabsan cabitaanka bunka 20kii sano ee la soo dhaafay waxa caalamka ku soo kordhay noocyo cusub oo bunka laga sameeyo waxaana kamid ah noocyo loo yaqaanay American coffee iyo bunka cad waxa caadi noqday in bunka oo ka kooban caag ay ku jira ay dadka la maraan wadooyinka xiliyada ay ku soconayaan shaqooyinkooda 450 sano kadib bunka ayaa ku faafay daafaha caalamka wuxuuna noqday mid ka muhiim u ah nolosha aadanaha hadaba haddaad daawatay muuqaalkani fadlan share dheh dhanka YouTube-ka subscribe-ka inagu qabo Guulwada Online aad baad u mahadsantihiin